xukuumadaha Asmara iyo Muqdisho ayaa waxay gaareen heshiis 7 qodob ku kacaya xilli afartii maalmood ee aynu ka soo gudubnay uu ku sugnaa dalka Eritrea madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaana qodobadan ku jira iskaashi xilligan muhiim ay tahay inay wada yeeshaan labadan dawladood qodobada ay ku heshiiyeen haddii aynu idiin iftiimino daawadayaal dhegeystayaal ayaa waxaa ka mid ah 1 dhiirigelinta xiriirka walaalnimo ee labada shacab ee Eritrea iyo Soomaaliya oo ay ku jiraan ayaa la yiri bulshada qurba joogta 2 adkaynta iskaashiga siyaasadeed midka diblomaasiyadeed si horay loogu sii wado maslaxadda labada wadan ee Eritrea iyo Soomaaliya 3 ballaarinta iskaashiga dhaqan-dhaqaale ee labada dal iyadoo si gaar ah awoodda loo saarayo ganacsiga maalgashiga amniga biyaha beeraha kalluumaysiga caafimaadka iyo waxbarashada 4 isdhexgalka iskaashiga farshaxanka cayaaraha dhaqanka tiknoolajiyadda iyo sayniska 5 iskaashiga lagu ilaalinayo bay'ada iyo xalinta dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimilada 6 sare u qaadida iskaashiga difaaca iyo nabadgelyada si nabadda iyo xasiloonida loo ilaaliyo 7 in laga wada shaqeeyo xiriirka wanaagsan ee iskaashi iyo isku furnaanta dhaqaale ee Geeska Afrika madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud saddexdii maalmood ee aynu ka soo gudubnay waxaa kormeer uu ku sameeyay ciidanka muddo ka badan 2 sano halkaasi ku sugnaa oo ay geysay dawladdii uu hogaaminayay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii hore ee Soomaaliya kuwaasi oo muran xoogan uu ka dhashay badqabkooda iyo xaaladda ay ku sugan yihiin warar ayaa mar dhaweyd sheegayay in ciidankaas loo haysto lacag tiradeedu ay la eg tahay 50 milyan oo dollar oo ay dawladda Eritrea sheegtay inay ku tababarayso ciidamadaasi waxaana xilligaas la wariyay inay ballan qaaday dawladda Qatar hase ahaatee Qatar waa ay ka gaabsatay bixinta lacagahaasi waana tan keentay in ciidankan ay go'doon ku noqdaan dalkaasi halka warar kale oo horey looga baahiyay isla ciidankan ay sheegayeen inay ka dagaalameen qaybo ka mid ah dalka Ethiopia hadda heshiiskan iskaashi ee u dhaxeeya xukuumadaha Asmara iyo Muqdisho ayaa loo arkaa inuu uga galxaarayo isku kalsoonaan iyo wada shaqayn buuxda oo dhinacyadan dhex marta